sanad kasta ayaa loo dabaaldegaa 24 bisha Maarso maalinta qaaxada adduunka iyadoo ujeedadu tahay in bulshada laga wacyigeliyo khataraha cudurka Soomaalidu u taqaan qaaxada. wasaaradda caafimaadka dawladda Puntland oo arrintan ka duulaysa ayaa garawa ku qabatay munaasabadda maalinta qaaxada adduunka waxa ayna sheegtay wasaaraddu inay dawladdu hirgelisay 15 xarumood oo lagu baarayo cudurkan si ay qayb uga noqdaan ololaha dawladdu ku yareynayso cudurka qaaxada. xuska maalintan qaaxada oo ka dhacay xarunta wasaaradda caafimaadka waxa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland madaxda hay'adaha wasaaradda kala shaqeysa arrimaha caafimaadka qaar kamid ah ardayda caafimaadka ka barata jaamacadaha Garowe iyo ururada haweenka Puntland. maareeyaha mashruuca xakamaynta qaaxada Dr. Cali Xasan ayaa sheegay in cudurkan uu dilay 1,600,000 oo kun guud ahaan dunida sanadkii 2017 laakiin hadda kadib dadaalo la sameeyay ay tiradu intaas ka yartahay. sababtii TB waxay ku jirtaa 10 cudur ee dilaaga oo u sareeya dunida. top 10 killers ay ku jirtaa 10 cudur oo u sareeya oo dadka sabab ugu noqda inay nafta ka qaadaan. waxa la yiraahdaa 1,600,000 oo kun ayay dishay sanadkii 2017 sanadkii kasii horeeyay intaas qof ayaa u dhintay sabab cudurka TB-da. dadkaasi badanaa cudurka uu laayo 95% waxay ku nool yihiin wadamada soo koreya oo inagana xaalkan garanaysan. dadka ugu badan cudurku ku dhaco waa dadka productive age la yiraahdo oo ama wax soo saari lahaa ama taranka ka qayb qaadan lahaa. marka mushkilooyin inta ilaa waa dareemaysan waxa kale oo mushkilooyin si ah faqriga qaxootiyaasha nafaqa darrada cudurka HIV-ga la dhaho oo mushkilo weyn ku haya adduunka oo laga yaabo qofka 20 ilaa 30 jeer ka badan in uu marka haddii qof HIV qabo uu active TB isku bedeli karo. xaaladahaas la arkay aan sameynay waxaa ka mid ah in la kordhiyo qaabkii loo baari lahaa xanuunkan. mashiino waxaa la keenay loo yaqaan expert oo lagu ogaanayo in qofkan MDR TB leeyahay. waxaan keenay min X-ray wax la yiraahdo ama X-ray casri ah oo ilaa 4 gaaraya iyo expert hadda aynu ilaa 8 xabo oo hadda loo shaqeeyo microscope-yada hore caadiga ah waa la bedelay LDBAL la soo cusub oo runtiisa sensitivity ay keenay. madaxda hay'adaha WHO iyo World Vision oo wasaaradda kala shaqeeya arrimaha caafimaadka ayaa ka warbixiyay dadaalada ku aadan cudurkan qaaxada. The theme for 2019 is it is time to take action as we commemorate this World Tuberculosis Day today. We also celebrate 14 years of consistent treatment of the disease in a very challenging environment. World Vision maintained presence in Puntland for 15 years and has been principal recipient of the Global Fund TB program since 2004. موضوع سنة كأسلا بوركنا كواركتان وحليه لقالنا فعل أو أكشن ما أنتوا أود بلدقي إنه World TB Day waxay Vision joog ka shaqeynaysay Soomaaliya 4 sano oo xiriira 15 sano ugu dambeysay waxay joogtay Puntland iyadoo ahayd programka TB programka Global Fund intii hogaaminaysay isla markaana TB programka Global Fund waxay siiyaan support xaqiiqdii supportigaasi marka ka dambeeya uu si yaraanayaa iyadoo oo xanuunkuna mararka qaar sii kordhiyo. wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Faarax Jaamac Xasan ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay wadaan dadaalo lagu yareynayo cudurkan si taas loo gaarana ay badin doonaan xarumaha lagu baarayo cudurkan qaaxada. waxaynu ku leenahay 15 xarumood guud ahaan Puntland 15 xarumood ayaynu ku leenahay oo ay caawiso hay'adda World Vision oo iyadana ay sii caawiso Global Fund. waxaa ka shaqeeya shaqaalaha waxaa ka shaqeeya aad baa runtii ugu mahadcelinaya shaqaalaha ka shaqeeya ku howlan
la dagaalanka qaaxada kiisaska daaweeyey waxay ahaayeen 4,451 waxaa la daaweeyey 2,147 halkaa waxaa ka garanaysaa xoogaa hoos u dhacaya inuu ku yimid sanadkii ugu dambeeyey 2018 hoos u dhacaas waa 304 kiis hoos u dhaca ugu wacan xoolaha aan hadda hoos soo sheegi doono insha allah oo ay ka mid yihiin waxa ugu muhiimsan ay tahay dhaqaale xumo iyadoo dhaqaalihii fadliga ku bixin jiray tv-da uu hoos u dhacay. Jacfar Macalin Maxamed, warbaahinta dowladda Puntland, Garow.